Fanon ayaa magaalada Hargeysa waxay munaasabad ballaaran oo sagootina ugu samaysay dufcadii sagaalaad ee jaamacaddaasi ka qalin jabisay ee qaliinka iyo daweynta ka barata. Munaasabadan oo admisiyar sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xisbiyada, xukuumadda iyo weliba martisharaf kala tiro badan iyo mas'uuliyiinta jaamacadda. Waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda France Fanon oo faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ay soo mareen ardaydan inta waxbarashadan ay ku guda jireen, iyagoo halkaasi ku sii sagootiyay Ilaahay inooga bariyay in cilmigan uu noqdo mid ku anfaco. waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadan sagootinta dufcadii sagaalaad ee kuliyadda qaliinka iyo daweynta ee jaamacadda France Fanon, iyaguna jaamacadda ku bogaadiyey culuntan muhiimka ah ay barto daayirta. maantana ma aha qalin jabin, waa qalin bedelasho. dhakhtarnimadu waxay ka bilaabmataa markaad saw graduate garayso aad welibana inteen noqoto, waxa kuu bilaabmaysa marxaladii ugu muhiimsanayd ee dhakhtarnimo. waana waqtiga uu qofka dhakhtarkii wax barto, waa qofka waqtiga gacanta loo sii daayo, waa waqtiga ay tahay inuu ka faa'iideysto sida saxda ah. kolay dhakhaatiirta macallimiinta dhakhaatiirta nooca halkaas soo safan aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa aqoonta qiimaha leh ay soo bareen. ma aha mid aan abaalkeeda gudi karno, aad baa ugu mahadsantihiin. dhakhaatiir baa jirta markay qalin jabiso iska gasho suuqa haddaad gasho oo aad intee programka geli weydo shahaado internship ma helaysid. wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalka guud ee Hargeysa waxaa la isla gaadhay go'aankaasi, markaa waa inaad qorshaha maskaxda ku sii haysaa. dadku cashuurta way bixin doonaan. Cabdikariin Axmed Mooga waanu siinaynayo noomu soo doonanay adeeg baa la arkayay waxba ma tusay. dawladdana waxaan leenahay wax ma tusa, cashuurta way kala shaqaynaynaa. inta aydan waxba na tusinay dhakhaatiir aan la geynin tuulooyinka, magaalooyinka yaryar, degmooyinka yaryar ee inamada la saxayay waayo oo iyagoo soo dhiganayo 7 sanadood kale internship iyagu ay istabarayaan. dawladnimo ma aha. marka koowaad dhakhaatiirta waxaan leeyahay inaad Ilaahay markasta aad ku xidhnaataan, awaamirta Ilaahayna aad fulisaan. mahmaabaa tiraahdaa alla weyn ninkii aamina awood leh. marka qofku hadduu Ilaahay haysto wax ka wanaagsan ma jiro. wax weyn inaad ma taqaanaa aad Ilaahay aad aamintaan, waana ku barwaaqoobi doontaan haddaad xiriir wanaagsan Ilaahay aad la yeelataan. dhakhaatiir leeyna ma hayso, laakiin wadankii waxa inoo la keenaa dawooyin aan tayo lahayn, qofkiina waxba ka tari karaynin. taana insha Allah kulli dawladda hay'adda quality control kuna shaqo badan bay ka qabanaysaa, wasaaraduna shaqooyin badan bay ka qabanaysaa. iyagana waxaynu u sheegaynaa dadka pharmaceutical dawooyinka keena war Ilaahay ka baqa oo ummadan dawo standard wanaagsan oo heerka caalamka ah u keena. waajibka aad soo gudateen ku camal falkiisa iyo camal gelintiisuna markay niyadu hagaagto waa cibaado ogaada, waa qurbo Ilaahay ugu dhawaanaysa subhanahu wa ta'ala. ilaahayna aakhira idinka abaal marinaya haddii niyadu wanaagsanaato. bulshadiinu baahi badan bay qabtaa, baahida inaad ka fargaraysaan sidaa la tilmaamay. meelaha baahida badan ee ka jirto waqtigiina ugu badan inaad gelisaan. waa shaqo aan lacag laga helayn. dadkeenu waxay aaminsan lacag laga helo. waxaan ku idhaahdaa haddaad caafimaad soo gashay amba dhakhtar ahaw amba nursing ahaw amba midwife ahaw amba whatever professionka doontaate waa ajarun niiso idinkana intaas ma leeyahay. farxad weyn bay tahay anigoo arday ahaa markaa high school ka soo baxay oo ku faraxsan professor weyn oo adduunka caamka ah muxuu ahaa research badan qoray aan ardaygiisii oo kalena ahayn oo dhageysanayo. maantana farxad weyn bay tahay oo mas'uula inaan hor fadhiyo ama ka hor badbadaynayo wax kasta oo insha Allah ta'ala wanaag ku helaysaan ku dhaqaaqa naxariis u sameeya patientka. aqoonta aad barateena maanta inta kuma koobnee waa rubuc cilmigiina weli uu dambeeyo, waa rubuc waxa maanta barateen 1/4 ayaa maanta barateen. ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyay halkaasi ka hadlay Dr. Xuseen Bulxan oo ah aasaasaha jaamacadda France Fanon, isagoo oo uga mahad celiyay jaamacadda iyo weliba ardaydaba culuntan muhiimka ah ay barteen, oo uu sheegay in uu noqon doono mid ay bulshadooda ku anfacaan. qadar waxaan idin leeyahay taasi haddaad eriyato waad ku lumaysaa.
si haddaad dakhtarnimadaadii wixii aad u baratay ay markii u horreysaba fikradaadu ahayd haddii aad raacdeen naxariisteedii aad leedahay sharafteediina aad raacdo dadku way garanayaan in la isku ka hadlayn karo iyo in lagaa baxsado marka waxaan doonayaa ku adkaysta dhakhtarnimada bilow iminka marka ma baxdeen internshipka ma dhammaysateen laysenskana ma qaadateen marka u horreysa xasan cali maxamed lagu odhan jiray ammaana amina maxamuud ama magacii shakhsigaagii lagu odhan jiray way isbedeshayoo doctor baa lagu odhay marka bilowga sir baan idiin sheegayaa bilowga u horreeya dadkaa ku garanaya xasan iyo cali kugu yeedhaya waxaad tidhaa doctor xasan doctor xasan shirkadda telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka moobilka qiimaha cusub $1 waxaad ku helaysaa internet iyo ku hadal maalinle ah oo aan xadidnayn waxa kale oo shirkaddu qiimo dhimis ballaaran oo 40% kugu samaysay internetka toddobaadlaha hadda waxaad ku helaysaa $3 oo keliya si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn ee maalinlaha toddobaadlaha waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyey abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan